dalada ay ku midoobeen ganacsatada dekada berbera wax kala soo daga iyo mukhalasiinta adeegyada cashuuraha u qabta oo maanta shir isugu yimi ayaa waxay eedo u jeediyeen gudida gaadiidleyda tawfiiq ee gaadiidka xamuulka ka qaada dekada maamula waxaana sheegeen inay gudidaasi lacag ka doonayaan gaadiidka ay gaarka u leeyihiin tijaarta waaweyn oo hore aan looga qaadi jirin lacagta dekada lagu galo ee loo yaqaan gate baaska waxaana halkaasi ka hadlay xogayaha dalada Sofa Maxamed Ibrahim iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka dalada Sofa ee ganacsatada Mr. Buux Tawfiiq marnaba aan hoostigin oo aanay ka tirsanayn Tawfiiq sababta loo joojiyay shaqada kamid tahay lacag corruption oo meelnaba haysan in lagu qaado nimanka gaadiidka oo 20 kuna maadaama dalka dhana ay waliba ku gacan siinayaan qayb dawladda kamid ah aanay ahayn in lacagaha noocaas oo kala iyadoo laga wada hadal loo joojiyo ganacsiga dhanaa dalka Sacuudiga isku socodka ah daliilo badan ay soo jeediyeen baa jira Sofa iyo ganacsatadaba laakiin aan meel laba haysan Tawfiiq waa dad aan nidaam ahaan dhisnayn dhowr jeer wasaaraddu weyna wada hadashiisay laakiin dhinacooga waxba kama dhamaan heshiis saxana kama soo jawaabin wada hadallo hore la galay oo loo soo diyaariyay wajiraan 5 qodob ahaa sida damaanada badeecada inay qaadaan heshiisyada in alaabta amaanadeeda sugi karaan waxa soo dhan Tawfiiq way ka jawaab weyn walina waa qabiyo iyadoo arrimihii qabiya yihiin ba hadba maamulada waxay isbedelaa waxay ku qaadaan amarro cusub nin walba awoodda markuu cusub yahay uu la yimaado ayuu meesha la yimaado maadaama anagu matalina dalada ganacsatada Sofa oo ganacsatada matalo gobolka Saaxil waxaanu maamulka gobolka gaarsiinayna barasaabka iyo maamulka jira taliya qaybta iyo Somaliland in arrintan nimanka Tawfiiq la soo kala gaaro niman shaqeynaya aan constitution nidaam shaqeynayana aanu meesha ka jirin niman boob u yimid mooyaane aan niman shaqeynayana ahayn marka kulli anu waxaan ku soo gabeeyay hadalkayga in nimankaasi dawladdu ay si gaar ah u soo yogto maadaama niman dhisan aan ahayn waa niman u yimid inay corruption ka shaqeeyaan go'aano ay jirin bay qaataan iminka go'aamada ay qaateen sida nooliska kordhinta heshiisi aan jirin oo cille ka gaaraan dadka hantida leh maamul baa jira oo kala Sofa la yiraahdo Sofaana xukuuma meesha heshiis lagu galeeyna waxaan isla soo garanun baanu kordhin jirnay waxaan isla soo garanun baanu qaadan jirnay iminka waa nimanka kaligood socda inta ka dib hadalkii waa la yiri badankiisii Tawfiiq ururkan Tawfiiq ee gaadiidleydu horta markiisa horeba waxa loo asaasay waxay ahayd kaliya WFP marka 20 kun oo tiritan ama 40 ay yimaadaan inay u kala horaan baabuurta ama ay u maamulaan baa loo abuuray oo asaasnayd laakiin inay ganacsatadii waaweyned ee dalka wax keenaysay ay shaqadooda ku qabsadaan oo gaadiidkooda ku qabsadaan Tawfiiq markeeda horeba looma asaasin maanta sida laga dhawaajiyay ama in wada ognahay dekada waxay u xaniban tahay amar ka soo baxay Tawfiiq oo aan garanayn meesha uu salka ku hayo dhowr jeer waa la wada hadlay habeen saddexaad baa ugu dambeysay halkan gudoomiyuhu noogu yimi gudoomiyaha ururku dhawaan ay doorteen ballan baanu ku kala tagnay wuxuu ahaa in aanu wada hadallo oo aanu heshiis gaadhno haddii aanu nahay ururka ganacsatada iyo ururka Tawfiiq annagoo ballankii ku sugaynaa ayuu maan xalayta media ka haragnay isagoo cid walba eedaynaya haday DB Wall tahay haday mas'uuliyiintii gobolka tahay oo barasaabku ugu horeeyay taliyaha qaybta haday Sofa tahay iyo ganacsatadii waaweyneed cid walba isagoo eedaynaya maan xalayta halka ka aragnay markii suuqay dambeysay gudoomiyaha gobolku suuqay yeedho 3 usbuuc hadda laga joogaa markaana waxaan ku ballanay in aan wada hadallo oo barasaabkuna saas u lagu ogaa marka idinku soo wada hadashaan hadii ay heshiisaanna heshiiska qoraalay keenay buu haddii heshiin kari weydaanna markaas aanu soo dhaxgaleynaa maamul ahaan soo celiya warkiina lagu soo noqdo baa 3 usbuuc baa laga joogaa taasina xaggooda ka suura gali weyday in aan wada hadallo intaabana saasaan ku sugeynay ganacsigu tartan buu ku jiraa dekedeenu tartan bay ku jirtaa way kula jirtaa dekadaha jaarka maalin iska daa saacad iska daa waqti ay xanibi karaa ma jiro 20 kun iska daaye wax ka waaweyn oo loo xanibaabaan ayaa suura gal ahayn mid hore jirtay oo maalin hore ay ka hadleen oo aanan ka jawaabin shalay toolana waxay ka hadleen telefishinada iyagoo sheegaya waxa aan meesha oolin
waxaa jirta ilamaa iyo muddo dheer ilaa intii DP World timi oo ay iska bedeleen mala 4 gudoomiye ama 4 barasaab ay iska bedeleen gobolka saaxil mar walba in la isugu kaayo keenay nimankaas haddaan nahay dalada Soofiya ganacsatada iyo nimanka Tawfiiq oo marba maamul soo bedelay iyaga laftooda in la isugu kaayo keenay dhowr jeer inaanu heshiisay dhigano oo aan ka wada hadalno waxyaalo fara badan xataa waxa ka soo qayb galay mararka qaarkood wasiirkii markaa gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo ahaa Cabdilaahi Abukor agaasimihii guud ee wasaaradda iyo waliba agaasimayaal hoos oo kaleeto waxa weeyaan heshiisyadii markaa la dabaqay oo markaa xataa dhowr jeer waliba xilligii uu joogay barasaabkii Axmed Loorin jiray heshiisyadii la doonay inaanu galay ay wasaaradda iyo gobolkuba noo kala saxeen noo kala aan idhaahdo noo kala dhigeen ee la doonay la saxo iyaga ka baxo diiday waxaa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ku hadlaya afka tijaarta waaweyn ee iyagu ku doodaya inaan lacagta laga qaadin gaadiidkooda halkan maanta waxaan isku nimid haddii aynu nahay sharaa'igii dalka wax keenayay ee waaweynaa iyo shirkadeennii iyo ururkeennii Soofa waxaynu isku nimid inaynu jawaab ka celinno nimankan shirkadda la yiraahdo shirkadda baabuurta ee Tawfiiq oo shalay toole soo dhigtay miidiyaha hadal ay kaga hadlayso inay kordhinayso 20,000 oo shilin oo ay ka qaadaso baabuurta shirkadaha gaarka loo leeyahay ee shirkadaha nimanka dibadda wax ka keenay waaweyn kambaniyada ay soo dhigeen meesha taasi ayaan doonaynaa in xilligeedii aan ka jawaabino oo aynu ka sheegno inaynaan lacagta 20,000 ee shirkadda ay doonayso inaynaan ogoleyn shirkad ahaan haddaynu nahay sharaa'iga waaweyn ee dibadda wax ka keenay aynu nahay eena 20,000 shilin 20,000 shilin aynaan ogolan maadaama inagu aynu shirkad nahay dalkana aynu wax soo gelino dalka wixii ugu shaqeynayo iyo wixii kala ganacsatada ayaa lacagtooda iyo cashuurtooda bixisa oo keenta marka anagu maadaama aynu dalkii shirkadii wax soo gelinayno iyagu dadka ma aha dad shirkad wax soo gelisa dalka ma aha iyagu waxun bay qaataan 20,000 oo shilin bay doonayaan fadhiga ku qaataan oo ay nagu maamulaan marka waxa weeye inagii wax soo gelinay dalka dhisidiisa iyo lacag dhisidiisa iyo horumarkiisa ka shaqeynay inay shirkad yar oo meel joogto ay nagu maamusho 20,000 oo shilin tiraado baabuurtiinii baa loo xanibay dib u joogsada wax meesha yaala maaha waxna qaban karana maaha marka maamulka gobolka iyo maamulka waxaan sheegayaa taliyaha qaybta iyo magaranaysaa gudoomiyaha golaha deegaanka ee magaalada waxaan u sheegaynaa degmada Berbera iyo DP World waxa aan codsi u diranaa oo aan leenahay shirkadaasi shirkad hunguri u kacday weeyi waana shirkad hunguri ku dhisan maadaama 20,000 doonayso annaguna waxaanu bixinaynaa cashuur bixiyaal baanu nahay oo waxaanu ka nidhaa dhismihii dalka ayaanu ka qayb qaadanaynaa oo intaasoo markab ayaanu keenaynaa oo meesha jooga sideena loo odhan karaa baabuurtaad ma geli karta dekedda iyada oo waliba DP World lacagta noogu dartay ma garanaysaa lacagta la yiraahdo ma garanaysaa gate passka board charge-ka ayay noogu jirtaa oo naga qaadano noogu dareen board charge-ki imiga lacagtan ay kordhiyeen bay noogu dareen haddana waxayna leeyihiin imiga shirkad yar oo kale kaliya oo meesha joogta annagoo 5% shirkad ahaan shirkadda Omar waxay dalka keentaa 5% ayaa wax dalka soo gala anagu cashuurna u bixinaa Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay Star TV Berbera